Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalaha dhammaan oo idin salaamay dhammaan muslimiinta meel walba oo joogtaan. Muddo waa idinka maqnaa arrimo jiro awgooda. Hadda ayaan dib ugu soo laabtay. Waxaan arkay dhowr su'aalood oo i weydiinayaan dadkii igu xirnaa walaalahayga. Waxaan leeyahay horta raali noqda inta aan aniga mashquulay adduunyo iyo arrimaheeda kalaan ku jiray. Maasha Allah hadda dib baan u soo laabtay. Marka insha Allah waxaan rabay su'aalihii in ka mid ah inaan soo qaato oo ka soo jawaabo. Waxa ka mid ah dadka i weydiiyay badankood soo laabteen dadka ku dhalay qaliinka imise jeer bay qaliin kale ay mari karaan. Intii Ilaahay horta qoray way marayaan. Balse dadka waxaa waaye dhaqaatiirta iyo khubarada waxbay ku taliyaan. Waxaan rabay inaan mowduuc sidaas uga hadlo iyo saameyn muu yeelan karaa qofkii dhowr jeer la qalo. Saameyn intee la eg buu ku yeelan karaa. Intaa baan rabay inaan ka hadlo. Mowduucan haddaan gudaha u galo insha Allah wuxuu ku saabsan yahay labadaas. Hooyada qaliinka waa waxay ahaataba ama qaliin ha ku dhasho ama ha u dhasho normalka waxa fiican mar waliba hooyada inay ilmaheeda kala fogeysato ilmihiina say ugu koraan nafteedana ay rest u hesho ay nasato. Ma ahan kaliya qaliinka wax nasashada u baahan horta balse qaliinka wuu ka sii yara fiican yahay inaad dooratid adigayna kuu fiican tahay cunugaagay u fiican tahay sababa caafimaad jiro awgeeda ayaa muhiim ay u tahay inaad muddo ka nasatid si uu jirkaagana u kabsamo oo u bogsoodo adigana aad jaanis kale u heshid inaad u dhashid normal. Haddii ay qaliin noqotana uu jirkaaga hadana u helo kabsasho kale oo fiican. Soo hooyada waxay ku dhali kartaa sida khubarada waaweyn caafimaadka ay sheegeen. Anaga aan dhaho maadaama anigana aan ka mid ahay bahdaas waxaa lagu taliyaa in ay hooyadu ku dhali karto 3 jeer ugu badnaan 4 jeer. Sababtuna waxay tahay qofkaas waxaa la jeexayaa minkiisa qayb ka mid ah placenta-da la dilaacinayaa cunuga laga soo bixinayaa operation kaas meesha lagu sameynayo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waa isla meeshii meel kale oo cusub jirkeeda lagama jeexayo. So at least waxaa la rabaa qofkii asagoo xitaa operation u laabanayo in uu jirkiisii siiyo time uu ku kabsado si waxyaabo xaalada caafimaad dar ah ula kulmo. Ugu fiidiyaha sawirkan aan halkan soo saaray wuxuu muujinayaa marka ugu horeysa ee hooyada la qalay sidii ay tahay boogteeda iyo markay reysato meeshii isqabato. So mar labaad markii lagu celiyo meesha sidii ma ahaanaysa saddexaad afraad saas ma ahaanayso way sii dibcaysaa ileen marada haddii ay mar jeexmato tusaale ahaan marada haddii ay ka jeexmato aad isku tushid hadana jeexmato hadana aad isku tushid hadana jeexmato aad isku tushid ma noqonayso marka dambe waxay noqonaysaa wax la tuuro ama waxa waaye kab ay noqonaysaa. Soo bini'aadamka jirkiisa sidaas oo kale waa uu dibacsan yahay marka haddii la jeexo minkii hadana mar labaad la jeexo naf baa ka soo bixinaysaa waa laba naf oo isku dul nool. Soo hadhow waxa waa xajmigii placenta-da ay lahayd meesha cunug uu ku jiro xitaa daciif baa ku imaan waxa laga yaabaa inay hooyadii dhiig baxdo oo dilaacdo placenta-deeda awood aan lahayn. Soo sidoo kalena waxa waaye uterine-keeda inuu damage weyn qaada laga yaabaa ama meeshii la tolay naftirkeeda oo qaliinka lagu sameeyay ay ka soo baxdo wax hilib ah ku abuurmaan oo dhowr jeer maadaama la sukabay oo meeshii ay cayisho hilib ay ku abuurbato hilibkaasina uu u keeno dhibaato kale oo in u baahdo qofkaas hilibkaas laga qalo mar labaad surgical ku laabto ama cadiin wax ay ka dhalato. Soo qofka marka waxaa fiican in uu ka hortago ugu yaraan 2 sano uusan wax uur qaadin 2 sano inaadan uur qaadin adigay kuu fiican tahay cunugaagana way u fiican tahay diintana way nafartay. Marka haddii aad gaarsiin kartid ilaa 3 sano waxay u badan tahay inaad adiga ka badbaadi doontid operationka labaad aad ku dhali doontid normal. Haddii ay tahay hooyada mid horey u dhashay normal oo operation ay ilmaha damba 2 mise 1 adii 3 oo kale ama 2 hore hadii ugu soo dhashay caadi oo hadana mar labaad ay ku dhashay operation ama mar saddexaad hooyada saday time jirkeeda siiso mar afraad waxay u dhali doontaa sideedii normalka ahayd. Boqolkiiba ma dhaheen laakiin 4 qof markii la isbarbar dhigo 3 ka mid ah waxa waaye waxay noqon doonaa normalkeeda ku laabanaysa hal in ay ku laabataa laga yaabo operation. Soo qofkii operation ku bilaabana wuxuu ku dhali doonaa always operation laakiin haddii hooyada hore u soo dhashay normal mar labaad ay operation gashay ama mar saddexaad waxay u badan tahay tokada kale inay ku dhasho sideedii hore. sababta waxaa laga yaabaa cilad cunuga xaggiisa ka imaatay inay tahay hooyada ahayn marka insha Allah ina ka faa'iideysateen rajaynaya.